بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan waxaan ka dhaleecaynayaa oo digniin iyo waxba uga bixinayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku dhaqaaqay tallaabooyin aad iyo aad u xun inan yar oo dhalinyaro ah oo laba xidigla ah oo ah kaasheerkii madaxtooyada askartiisa ayuu wuxuu ku dhaqaaqay oo uu yiri ha laga bedelo meesha annaka leh war madaxweyne ku-xigeen baynu u dooranay ma qabyaalad baynu u dooranay kadibna waxa lagu yiri war inanka iska daa wuxuu yiri waaban iscasilayaa buu yiri anigu haddii aan laga bedelin oo nin maxad casa aan la geynin waxa weeyi waan iska bedelayaa buu yiri ninkaasi madaxweyne ku-xigeenka ka ah jamhuuriyadda Soomaaliland waa ninka midayn kari waayay ee isku keeni kari waayay gobolka Awdal wuxuu mar walba istaagayaa maxad casanahay markaasa jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamin karaya ninka burburinaya jabinaya oo dowrogaya xusbiga kulmiyana waa isaga hadduu maanta sii joogana cid dooranaysa ma jirto waxaan leeyahay markaasi madaxweyne ku-xigeen qabyaaladaadii way farabadatay lixjecladaadii way farabadatay xataa maalgashi meelo badan inaad ka samaynaysid ayaa lanoo sheegay oo aad ku jirtid qolada laydka inaad ku jirtid oo qolooyinka kale aad ku jirtid waa lanoo sheegay waxaan ku leeyahay markaa hadeen lacag urusi baad u timid meesha madaxweyne ku-xigeen uma adiman dalkana waad baabiinaysaa adigaana jabinaya kulmiyana waad jabinaysaa haddaad muuse madaxweyne xugeen u noqotidna cid alla cid dooranaysaa ma jirto wasalaamu calaykum waraxmatullah waxa weeye ninkaasi haddii uu madaxweyne ku-xigeen u noqdo mudane muuse biixi cabdi cid dooranaysaa ma jirto samaroon ma dooranayo cid kalena ma dooranayso waxaan qabaa markaasi ninka qabyaalada ku dhaqaaqaya ee waliba qabyaaladiisii ay noqotay mid sii hooseysa ee baa cabdi u tagaya war ninkaasi ma madaxweyne ku-xigeen buu noqonaya ma noqonayo adeer haddaan la bedelinna waan iscasilayaa buu yidhi ninku wuxuu ahaa nin meesha ka mid ah oo laba xidigla ah oo xisaabiyo u ahaa oo aanan garanin cid alle cid uu yahay ayaanan garanin wuxuu yidhi maxad casa alla keeno markaa adiga danta kuugu jirtaa maxay tahay ninkaad sheegaysay madaxweyne ku-xigeenku eriyey isku fahamay maya waxa weeye danta iigu jirtaa waxa weeye waa inaan ummadda u hadlo anigu waxaan ahay guddoomiyaha arrimaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ee golaha wakiilada marka cid kasta oo la taabto waa inaan u hadlaa يعني لفتر كيسة مدحون كحين سومالان إسقانا دورين كوج إن وهيلنا سد قدوميها أريمها بالشدة تسوي كم من دهمية تهدو دم بكلام أنا هذا روان كو حطينا يا سو دم بلا معها